munaasabadan oo ka dhacday xarunta jaamacadda Kismaayo ayaa waxay daafur u ahayd barnaamij loogu magacdaray asbuuca bandhigga ee jaamacadda Kismaayo. munaasabada waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ardayda wax ka barata jaamacadda, macallimiinta jaamacadda, wakiilo ka socday shirkadaha isgaarsiinta iyo marti sharaf kale oo lagu casumay. furitaankii asbuuca bandhigga ee jaamacadda Kismaayo ayaa Mawlid Maxamed Aadan oo ka mid ah maamulka jaamacadda Kismaayo waxa uu faahfaahin ka bixiyay ajendaha loo qabtay bandhig cilmiyeedkan. ujeedada ka leedahay waxaa weeye kow in ay ardaydu ay ku soo bandhigaan mawaahibtooda iyo waxyaalaha ku jira inay soo bandhigaan oo waxaa la yidhaahdaa al-inaa'u yadax bima fiih. waxaa weeye qofka haddii cilmi badan lagu shubo waxaa la rabaa kolkuu farsamo inuu isla soo celiyo, inuu marka cardi uu sameeyo oo ardayga waxyaalihii mawaahibtiisa ahaa iyo cilmiga ku jira inuu soo bandhigo. waa ujeedada maaragtay koowaad way ee loogu talagalaba. midda labaad, bishaaraadka ardada in kor loogu qaado ayaa loogu talagalay. midda saddexaad ee loogu talagalay waxaa weeye barnaamijka in ardada dhexdooday noqoto ama usra jaamacada inay isku bartaan. marka hadafka aan ka leenahay waxaa weeye midihii ay beereen macallimiintu ama jaamacaddu ayaa waxaan leenahay bulshada qaybadeeda kala duwan kaalaya dalaarka midihii ama bulshada wixii aan loo haynay adeega ahaa inuu najaxay iyo in kale kaleen dalaarka. maxamed nuuriye shuuriye oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda islamarkaana ku hadlay afka maamulka iyo macallimiinta jaamacadda ayaa ardayda kula dardaarmay ka miro dhalinta yoolkooda waxbarasho. haddii hadda mara kalan la geliyo say noqonaysaa kalan soomida ku yeelmayso waxaan kala dhal dalka kala dhalaas la weydiiyo kalan hadda la jeedaan qur-aanku wuxuu ayad kalanka sheegaysa magaraysan kalan ayad sheegaysa yaa silqat allah waman axsanu min allahi silqa isku kala leeyahay diinta ilaahi kalar ka dhigta dee kulli iyadoo baaba kala dhidina iyadoo aadi ka muuqata saasay marka kulligood ku wada noqdeen. markaase waxay noqdeen wax iyadoo kale aan arag taariikhdiisa ilaaweyn. marka meeshan aqoon unbaa loo dhex dhigay aqoontiina ku danbay ka faa'iideysteen, kuwana hadday ka faa'iideysanayaan, kuwa soo socdana way kasoo faa'iideysan doonaan. idinkana khayr baan idin rajeynayaa, wixii bare baad soo bandhigaysaan. bandhig cilmiyeedkan ay sameynayaan ardayda wax ka barata jaamacadda Kismaayo oo socon doona muddo asbuuca ayaa inta uu socdo waxay ardaydu isku weydaarsan doonaan su'aalo cilmiyeed kala duwan, iyadoo sidoo kalena macallimiinta jaamacadda iyo aqoon-yahano lagu casumay asbuuca bandhigga ee jaamacadda Kismaayo ay halkaasi ku soo bandhigi doonaan mowduucyo muhiim ah. Jaamac Axmed Cali Joofane, Somsa TV, Kismaayo.